السلام عليكم كسو دواada daawadayaal qaybtii labaad ee barnaamijkii aan ooga hadlaynay qaswadii ama dagaalkii qaadisiya qaybtii koowaad waxaan ooga soo waranay dagaalkii dhacay maalinka koowaad qaybtana waxaan ku qaadaa dhigi doonaa dagaalkii dhacay maalinkii labaad muslimiinta waxaa soo gaartay akhbaar muhiim ah oo ka farxisay Umar bin Khadaab ayaa risaalah ama fariin u soo diray Sa'ad bin Abi Waqqas fariintan oo sheegaysay in midad ama gurmad laga soo diray Shaam kadib markay guul ka soo hoyeen muslimiinta dagaalkii Yarmouk dagaalka oo uu hoggaanka u hayay halyeeygi weyna Sayfullah al-Maslul Khalid ibn Walid radiyallahu anhu wuxuuna dhanaa ciidanka gurmadka ah 6,000 oo dagaalyahan kuwaas oo uu hogaaminayay qaa'idkii weyna ee Al-Qa'qa' ibn Amr markay maqleen arrinka muslimiinta aad ay u farxeen sababtoo ah mujaahidka Al-Qa'qa' wuxuu ahaa dagaalyahan geesi ah oo markuu dagaalka soo galo dabaysha cabsida ay ka baxdo dhammaan ragga garbihiisa ah wuxuuna ahaa hogaamiye aan cabsan una dhigma kunnin Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ayaa yiri asoo ka waramayo la sawt Al-Qa'qa' ibn Amr fil jaysh khayr min 1000 rajul codka Qa'qa' ibn Amr ee ciidan dhexdiisa wuxuu ka khayr badan yahay kunnin lamana jibiyo ciidan uu ku jiro halyeegan oo kale markay soo gaareen Qa'qa' iyo ciidankii uu watay goobtii dagaalka waxaa bilowday dagaalkii u dhaxeeyay muslimiinta iyo furus ciidankii uu watay Qa'qa' waxay koox ugu biireen jihooyinka kala duwan ee ciidanka muslimiinta ayagoo takbiirsanayo waxayna argagax geliyeen ciidankii awoodii isbiday ee furus Qa'qa'na wuxuu soo degay goobtii dagaalka asagoo ka dalbanayo hogaamiyaasha furus mubaarazo waxaana la soo saaray hogaamiye aan liidan oo la oran jiray Bahmaan wuxuuna ahaa hogaamiye u dhigma 20 dagaalyahan Qa'qa' wuxuu ka taqalusay ninkii loo soo saaray ciidankii furusna waxaa ku dhacday hasiimo nafsiyah ama jab nafsi ah maadaama laga taqalusay nin ay u arkayeen lama leeciye ama nin aan beenbeen lagu dili karin Qa'qa' waa sii xamaasadooday wuxuuna dalbaday mubaarazo kale asoo leh yaa kale waxaana kolba u soo baxayay nin ay isleeyihiin awood ayuu hayaa ilaa uu ka taqalusay 30 nin oo Farisi ah salaad duhur kadib waxaa dib u bilowday dagaalkii waxaana dhexmaray dagaal culus oo lagu madhay ogow daawaday toogtan weerarka wuxuu ku socdaa dhanka furus cagsi maalinka koobaad oo weerar ku socday dhanka muslimiinta shirqoolle ay dhigayeen Qa'qa' iyo raggii kaleba waxay suurto gelisay in maroodiyaashii dib loo celiyo muslimiintana waxay hore ugu socdeen dagaalkii ayagoo rag badan laayay dagaalkii bilowday duhurkii wuxuu soo gaaray habeen kala barkii maalinkii labaad ayaa halkaa ku ekaatay waxaana la isfarsaari doonaa maalin saddexaad oo kasii kuli labadii maalin ee hore halkaa haynoo joogto qaybtii labaad ee dagaalkii ama qaswadii al-Qaadisiya la soco qaybta saddexaad iyo qaybta afraad